بسم الله الصلاة والسلام على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaan ka hadli rabaa mowduuc gabar aan xalay u ballan qaaday commentiga ugu horeeyay ee soo qortay ahayd hadduu waqtiga ii saamaxana dhowr qof kale ayaan mowduucyadooda soo qaadan doonaa. Marka ugu horeysa waxaa weeye qofka hadduu ku riyoodo barafuun iyo cadaraanta iyo waxyaabaha carafta badan, taa waxay tilmaamaysaa bishaarooyin badan. Waxay tilmaamaysaa ka bogsashada xanuunada jasadiyan iyo ruuxiyanba. waxay kaloo tilmaamaysaa akhbaar jadiid ah cusub inaad maqlaysid yacni oo farxad leh. waxay kaloo tilmaamaysaa guur gabadhaan la qabin. waxay kaloo tilmaamaysaa uur gabadh oo la qabo oo ulaad raadis ah. waxay kaloo tilmaamaysaa shaqo qofkii shaqo raadinay. waxay kaloo tilmaamaysaa acmaal wanaagsan. yacni aragtida barafoonadii waxyaabaha carafka badan aaday u fiican tahay. waxay kaloo tilmaamaysaa humuum iyo dhibaatooyin ciriiri iyo culeysyo rabbi kaa dulqaaday. yacni riyada haddaa riyo ku aragtid waa bishaaro. hadduu cadarka mise barafuunka caraf badnaa, haddii laakiin barafuunka yahay mid xun oo karaahaysanaysid urtiisa, waxaa laga yaabaa inay dunuubi macaasi jirto. waxaa kaloo laga yaabaa inuu jiro saaxiib xun noloshaada ku jiro iyo yacni dhibaatooyin iyo ciriiri inay jiraan. cadarka udgoon mise barafuunka udgoon wuxuu kaloo tilmaamayaa sumcad wanaagsan, dhoorsanaan. wuxuu kaloo tilmaamayaa saaxiib fiican. wuxuu kaloo tilmaamayaa calaaqo wanaagsan, dabeecado wanaagsan. hadduu laakiin cadarka oo urtiisa ay xun tahay, aad jeclaysanaynin oo yacni ur xun uu leeyahay, taa ma wanaagsano. walaalayaal halkaasaan kusoo koobaya aragtida cadarka guud ahaan. waxaan ka hadli doonaa mowduuc labaad, mayid oo wax kuu keenay. mayid wax kuu keenay horaa uga soo hadlay, in badan way wanaagsan tahay. mayidka qofka dhintay oo wax ku siinay aaday wanaagsan tahay. gabadha waxay tiri aabahay oo dhintay digir noo keenay. waxyaabaha la cuno digirta misigada wax walbo dalaga ka baxa aaday wanaagsan yihiin. mayidka wax ku siinaan waxay doontaba ahaato waa kheyr badan. yacni wax la cunayo ha ahaado, dhar ha ahaado, matalan hadday tahay barafuunoo kale, lacagoo kale, mayidka oo wax adiga ku anfacayo ku siinaya aaday u wanaagsan tahay. mowduuca saddexaad, sidaa hore idinku sheegay walaalayaal, inta muhiimadda ayaan kasoo qaadanaya mowduucyada waa soo koobaya. aragtida biyaha badda. aragtida biyaha badda in badan waa kasoo hadlay, aaday u wanaagsan yihiin. janankeyga hore dadkii igala socday in badan waa idinkaga faa'iideeyey. aragtida biyaha badda waxay ku fiican yihiin iyagoo degan, aan dhibaato lahayn, qarqoon iyo dhibaato iyo cabsi aana jirin. haddaad ku riyootid waa amni iyo amaan, waa guuleysi, waa hadafyo badan iyo guulo badan aad gaaraysid mise aad ku haminaysid. haddaad ku haminaysid oodna aragtida biyaha badda aad aragtay oo kale, waa inaad dadaal adna la timaadaa. aragtida biyaha badda waxay kaloo tilmaamayaan nabadgelyo iyo salaam yacni. mowduuceena afaraad walaalayaal, aragtida dadka caanka ah. sidoo kale iyagana in badanaa kasoo hadlay janankeygii hore oo naga xumaaday. aragtida dadka caanka ah waxay tilmaamaysaa sifo wanaagsan, qiimo sare iyo darajo. haddaynan xadiis nafsi ahayn, matalan dadka caanka ah dad adiga aad taageertidaa jiro, aad jeceshahay oo mar walba la socotid. dadkaasoo kale markaa mar walba arriyo ku arkaysid, taa xadiis nafsi waayle anoo adigaa jecel. haddii sidoo kale aad necab tahayna, aad dhibsanaysid mar walba kaasoo horbaxayaana, midaana xadiis nafsi noqon kartaa ilaa adaa necab. hadday laakiin arrimaha aan jirin oo dadka caan yihiin oo adigana shaqo baad isku lahayn, waa qiimo sare darajo. walaalayaal like noo saara, noona sheer gareeya, subscribe na saara. in badan jananka kor ha u socdo, dadaala oo maxay ahayd ku sheer gareeya guruubyada iyo meel walbo. aadaad umahadsantihiin. raygiina qaybta commentiga igu reeba.